nabaday qof kastoo siyaasad ka doodow horta kibriye ilaahay iska leh laakiin inta ka horeysa waa inaad mustakafi ahaato oo ana dawladaha talada haya waxba uga baahan tusaale waxa dhici karta inaydaan isku xisbi ahayn oo xisbiye hore oo adag joogsatay sawirkoodu kugu dhacay ay kuguna caroonayso laakiin hadda ogsoonow waxa weeyaan dal kasta oo dunida ka dhisan qof bini'aadan oo kasta ku nool warwar iyo raaxo labadaba wuu u dhashay anigu inta nimco ilaahay warwar la'aan ku jiray dad baa warwarsanaayo walaacsana anna maanta kaalintii aan haya haddana waa la iga dambeeyaayo dad badan oo maanta saa dhoosha iga qoslayo oo daawanaya ayay iyagana iyadoo kayda baanka u taala adduunyada nooca ka samaysan laakiin waxaan maanta doonayaa qof kastoo faadumo awrkood maanta dhulka fadhiya arkayo habeen turxaan yar iga qabayo de bini'aadanka xitaa wuxuu u dirin buu shaydaan ku diray maanta ku banaan tahay inaad aarsato oo faadmo saa ugu dul jeesto wax walba oo aad karaysa baad sidaa tiraado soomaydaan garan waxay noqotay dawladda maanta dalka haysa calankani ma ahayn de mid lagu hoos warwaro ka xitaa in warwarsan dawladaha ayaa dhayma u sameyn jiray waxaad ogsoonaata annaka dawladda talada noo haysay xukuumadii horaan hadda sawirkoodu nagu agdhacay de annagu dawladnimaan ku taageersanayn shakhsinimo iyo martay reernimo midna kuma naan taageersanayn maanta adigaanu shacabku noon ku taageersanay soomaad garan waxa weeyaan qofka bini'aadanka marka la yiraahdo hadii malaga lagu soo diro waagi bariyaba kadinka ku soo joogsado ku yiraahdo nafta laga qaadaya yaani adan waxba ku noolayn ayuu marka dama nafta ka qaadaya laakiin ilaahay way naga qariyay inaan dhibaatada u mudan bal ka waran laba bilood waa sharcaan ilaa xilligan bay haysataa waa laydin jiidaya waa laydin burburinaya waa laydin kanaynaya waxa u dambeysay calaamad cas oo karoosan lagu dhigo soomaydaan garan mid kale qof kasta oo siyaasadaha dumaraho dawlad waxba uga baahan hadii aad xitaa calaacasho ma hadaad naaskii hooyada wixii aad ka soo cabtay soo ma tagto sida miisiga inta lagu dhageysto ayaa waxaan ku risaal lagu digdigreeno looran doona allaayay halkan rabnay maanta fadhidaaba lagu oranaya laakiin waxaan kaga gamacsanahay intan maanta hayo in la iiga dambeeyo maanta dadiga liito oo jilicsan ay jiraan anu maanta codkaygii baan isku difaaci karayaaba ilaahay codkayga ma qaaday isaga kariine soomaad garan bal ilaahay baan kugu dheershay dhowr iyo 30 meheradiyo guriyo iyo isugu jiraanuna sida loo isaga oran karayaa halka imika burburkuba la yiri waa laga soo bilaabaya waxa ku yaala laba ra'iisle ilaahay wixii ugu yay bishii Ramadaan waad ogtay ra'iislaha hatta kursi gaar iyo muraayada gaar loo saa u xiriirsan baa loo sameeyaa midkiiba dhowr kun oo dollar oo daynayo ku amar kuwiba la doonaya in la burburiyo dawladaydu naxariis darada halkaas ka keentay tiyo dawladii hoose iyo dib u dajintii iyo hawlihii gudba joogan oo aad annaga meel noo samayn kartaan maxaad ku jeclaateen inaad dadaadisaan ma jiirbaan noogu kiin ul ma shacabkiini baan aanahay ya faaduma bal haba kan nixina bal inamadaasi maxaad waxoodu way baaba'ayaan bal ka waran iska badaa inta kale dadka 40 sano 20 sano 15 sano inta tagal baa yar la isaga ka qoraya wallahi oo billahi oo tallahi dhimasha dhaanta sidan oo kale ina idinka laayo oo nabuufiya ayaa noo dhaanta ad sidad noo galisaan soomaad garan wallahi oo billahi aqalkayga markan koonaha eegay in kaliga yahay waxaan ka qaadiyo waxaan ka tagawan karan waay cagafta haday saan noo galiyaan waa naftaadu kala bax soomaad garan markaad adigu ii damqan weyday anigu umada shanta Soomaaliyeed habeen iyo maalin dib iyo dheef wixii dhexdeena ka jira kama aamuso ii duceeyay inaan ilaahay meel xun dhigin walaalayaal soo duceeyay wali arrinteedii Soomaaliland baaba dhex joogtay ilaahay baan idinku dhaashay soo duceeyay haday soo dhaaftana aniga shanta Soomaaliyeed gabi mayso wallahi oo billahi inaan ii gabin waliga idin kama aamusin dib iyo dheef waxaad qabtaan ii soo duceeyay